السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ورسن شيخ محمد الجنال كداون إسانا وصيروك شيخ جنال أصحابتي ذات بايدين سلامية ما شاء الله تبارك الله. سود وهذا خير يا بركة نور أصحابتي الدب إيجا صبيرتي وحن لي هاي إن لها خير فربضن هاي نسيو ما شاء الله تبارك الله. صاد إيسو بوقتها نسيك ونكسن الله الرحمن كيني كجرجيني بإذن الله الرحمن. أصحابتي ذا مرة والبو وحن لي هاي شاركة ليجا كومنتيجا إن شاء الله وحقينا wixii subscribe-na waxaa leeyahay dadka cusub asxaabta cusub ee quruxda badan ee dib nooga soo biiraysay way idin baahanahay wali waxaan leeyahayna soo dhawaada ma sha Allah tabarakallah. waxaan rabaa inaan maanta aan ka hadlo runtii baraha bulshada waxa bariyahan ka socdo oo ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo la yiri wuxuu u safray dalka Kenya safar baa loo aadaa. horta waxyaalo badan oo waxa jiro dadka madaxdeena Soomaaliyeed ma waxaysan aqoonin systemyada iyo sida wax loo kala diro iyo sida meesha wax looga socdo iyo waxyaalo badan baa runtii aad u malaysaan iskaga keen dhaxyaacsan yihiin. horta tegitaankiisi isaga waxa ka horeeyay inay naagtii wasiiradda ahayd ay timi. naagtu wasiiradda ahoo timi bal mucjisada ina haysato iyo qofka darajo u salahayn inaan gaarsiino annagana aan isliidnaa naqaanaa. annaga waa isliidnaa laakiin dadka shisheeyaha ah darajaan siinaa. sababtaan darajada u siinayna anu ma garanin. naagtaas markay timi roog cas baa loo dhigay. rooga cas madaxweyne iska leh ra'iisul wasaare maxaan ku rahay wasiir iyo maxaan ku waxaas shaqo kuma laha. roog cas in loo dhigo shaqo kuma laha. waa marka dhanka siyaasadda caalamka u kacno waa qaladka koowaad ee horta aanu galnay ee garoonkanagii sharafta lahaa inta lagu soo dhaweeyay caasimadii dalka Soomaaliya inta lagu soo dhaweeyay haddana madaxweynaheeni lala simay oo roog cas loo dhigay. roog cas shaqo kuma laha. madaxweyne loo dhigi karaa. ra'iisul wasaaraheena waa ka daba duulay waa ka tagay. isaga marti ahaa. isaga ayaa marti ahaa. isaga ayaa dalkiisii ka tagay oo wuxuu u tagay dal kale. maxaa laga rabaa dal kale markaa tagtay? maxaa lagaaga baahan yahay? maxay tahay waxa aad rabtid in adiga lagu sameeyo? because adaa xushmada iska leh. adaa lagu soo dhaweynayaa. adigii baa la rabaa in lagu soo dhaweeyo dalka Kenya caasimadiisa magaalada Nairobi. qiso yar baa marka aan ka sheekeynayaa hadda ka hor dhacday. waxaa jiray oday awoogeen ah ما شاء الله وحي أنا عرورتي إذا حقه ذا يقصوا قله أنا جنا وحوي وارد كي مرة والبابا بوحو أها جيف كوجر أما قدومية أما دقة مركز مجال ده وحات تجي مدحوينه هراء دلك مريكان كا أوباما أيا وحو تجي دلك كينيا وكسي تجي الناد إسطنبول تجي مجالة وجر لي رهدو تجي وحلا حري هدية بقن كي صوماليات أوباما أوجي يجا أحري إلهي الرحمن ها حفظه الله بركيه نن مسؤولة ونرنتي أن أد أقدريون أقدم بيون رنتي مدح إيسار ويه waxaan u malaynayaa inaan geeridii Allahu naxariistay Cabdalle Maxamed Daahir guriga Abaay Faadima ayaan inaan isku aragnay baan jeclahay safarkaygii dambe ee aan baxay. marka awoowe gurigiisa loogu tagay barahiisa loogu tagay. nin daciifana ma ahayn nin aad u adag u ahaa nin geesina uu ahaa nin wuxuu ahaa dhaqanka Soomaaliyeed inuu dawladda Kenya ka hirgeliyana jeclaa wax badanna bedelay oo ku soo kordhiyay.
Obama waxaa loo xiray hidiya dhaqankii Soomaaliyeed sawirkaas insha Allah biidni Illaahi Raxmaan inaan helana waa jeclaan lahaa aan idin soo saaro haddii uu Rabbi raalli ka noqdo isagoo uu la taagan isagoo loo xiray marada okay waa nin gurigaaga kuugu yimi marka maxay ku kala duwanaayeen ra'iisul wasaaraheena iyo awoowe muxuu ku kala duwanaayeen waxay ku kala duwanaayeen ninna isaga marti ahaa oo yimi oo mudnaanta in asaga la siiyay ahayd oo suud qaaliya inta loo soo gado asaga loo xiray ahayd ama hidiya dhaqankii ay ninkaasi reerka uu ka soo jeedo Kikuyooda uu ka soo jeedo dhaqankoodii ama waxoodii ayagu ay garanayeen in isaga lagu maamuuso loo xiray ahayd ma ahayn annaga oo dhan intuu naxawayaamiyo oo uu soo qaato hidiya dhaqankii Soomaaliyeed oo garoonkii aad cadda kala soo duulo asagoo bac ku wato oo kii Nairobi uu kala soo dego inuu Uhuru Kenyatta u xiro inuu Uhuru u xiro hidiya dhaqankii Soomaaliyeed oo san cid kala tashanin taasi aad ba looga fiicaya madaxdana waxaa fiican inay oday dhaqameedkeeda ku xiran tahay oday dhaqameedkeeda iyo madaxdu hadday kala furtaan madaxda wax toosiyay u baahan tahay waa bini aadana wuu qaldami karaa inuu taas ku qaldan yahayna inuu noo muujiyaan jeclaan lahaa khilaafkii la sheegayay ee asaga iyo madaxweynaha ka dhaxeeyay waa inoo caddeeyay inaysan waxba jirin laakiin kan maxaan ku idhaahdaaye uu qaaday dhaqankii Soomaaliyeed oo uu ninkaas intuu u xiray waliba u fariistay oo de maxaan ku idhahdaaye macawiistiisii guntigiisii dhaxdiisii ugu xiray sharaf darro ka weyn ma jirto sharaf darro ka weyn ma jirto anoo shacabaaba yeeleenba saa waaba anoo ra'iisul wasaarihii dalka anoo shacaba yaan yeeleen qaateenna wallaahi alcadiim marka waxaa fiican markaa tahay mas-uul eedo badan baa kuu imaanaya ra'iisul wasaare cay badan iyo aflagaado badan baa ku soo gaarayso dulqaadkeeda allaha kuu yeelo allaha raxmaanka dulqaadkeeda ha kuu yeelo laakiin dembiga aad naga gasho wuxuu yahay inaad hidiya dhaqankanagii inaan isku diin ahayn isku dalna ahayn aad u keento in uu adiga kugu maamuusay ahayd hidiya dhaqankooda inuu kugu maamuusay ahayd ugaali iyo maxaan ku idhahdaa sukumo inuu kugu kariyay ahayd digir iyo galley intuu isugu kaa daro maharagweedi bahashay dhahayeen inuu kuu kariyay ahayd uu ku siiyo oo maxaan ku idhahdaaye uu kuugu soo rido saxana u dhow hidiya dhaqankeena hadda waa kanaa annagana waa kanaa hadde tan kale haddii aad u geysay hidiya dhaqankeena asaga muxuu kugu sooray oo hidiya dhaqankiisii ahoo uu kuu soo bandhigay isweydiinta waa taas baryahaan oo dhan waan aamusnaa yaa hadda ka hore waxaan idhi barayihii la xiray hoolalka oo brambur meel laga brambure la waayay oo guryihii la iska soo farfariistay baa waxaan idhi maalintii iigu horreyso hoolka aan tegay baryaan ka maqnaayoo bramburka aan tirin cudurkii soo baahay oo hoolashii bannaday ilaahay baari barbarkaasi inaga mari bishaaro weeyaanoo runta caawa waa bilow erayo aan baahin murti baan usoo bandhigi koos meel baan iska fadhiyo waa kaydinaye oo wixii waa qorayay waa dhigaye waa qorayay waa dhigaye marka waa xaajo ugube ninka muxuu asaga kuugu guday ina adeero gacaliya maxaad nooga soo qaaday wax kula xisaabtama ma la waayay ra'iisul wasaare sida aad noogu cadaysay khilaafka adiga iyo madaxweynaha idinka dhaxeeyay maxaad noogu cadeen weysay maxaan ku idhahdaaye hidiya dhaqankii aad nooga soo qaaday isna muxuu kiisa kuugu soo bedeli waay oo kuu soo siin waay maxaa qaldan
mise innaga isu xoog badan soomaaliyay annaga ma isu xoog badan waa garan waaye ya nacaybka maxamed cabdullaahi farmaajo loo qabo yaa dalka meel xun lagu ridin maxamed cabdullaahi farmaajo shaqsi waayday waa kaa tagaa berri wallaahi waa kaa tagayaa dhulkani adaa iska leh adaana u harayo maxamed cabdullaahi farmaajo waa iska tegayaa ra-iisul wasaaruhu wuu tegayaa nin walboo imaada waa tegayaa waqtigiisaa dhammaanaya waa soconayaa laakiin dalka yaa dhaxalkiisa iska leh bulshada soomaaliyeeda iska leh bulshada soomaaliyeeday maxamed cabdullaahi farmaajo waad ku daba dhegan tihiin ra-iisul wasaare ninka la yiraahdo Rooble maxaad u dhihi weyseen war heedha hidiya dhaqanka annaga aad noo soo qaaday aawe odayaasha dhaqanka reer muqdisho aawe odayaasha dhaqanka soomaaliyeed aawe war maxaa idin aamusiye war Puntland baa arkaynaa waxa ka dhacaya baliya baas odayaashu waa aamusan yihiin war maxaa afka biyaha idinkugu wada guray war Jubbaland baa aragnay waxa ka dhacay war maxaa afka biyaha idinkugu guray war muqdisho maanta maxaan ku raahdaye buuq iyo qayli ka taagan yahay war odayaasha dhaqanka uma baladaad ka adag tihiin baraayada inaad hurisaan maad ka adag tihiin hadda ka hor baa markii la doortay la keenay maxaan ku raahdaa ninka la yiraahdo Khayre la bedelaya waxaan ku yiri buraanbur antiriya jiray oo aan leeyahay midkii la doortaaba oday baa dareen ka wado reerkayga waxba lama siin ninkani naga bedela dareenka odayaashu ma dhamaato ilma adeerayaalow marka waxaan idin weydiiyey waxa idinka dantiina ka muuqato mooye dadka u daneeya maba taqaanaan miya Puntland baa arkayo gabar aaman Soomaaligiiba aqoonin iyo makarafoonka ka naxdaya waa qof bini aadana because aniga maalintii iigu horeyso makarafoon la ii dhiibay waa baqay qofka waa naxaya intaasoo qof ah markay saa ku soo wada fiirinayaan oo makarafoon lagu dhiibo waa baqaysaa runtii waa naxaysaa ma baqday gabadhaas mise gabadhaasi gabar aqoon la'aan haysay ahayd oo waxaan xitaa markaad qortid xifdin buu kaaga baahan yahay ya subaxii aroortii markay tukatay maxay u xifdin weyday haddayba rabta inay meesha soo istaagto maxay ugu celcelin weyday waxani waa iyadii iyadoo noo soo istaagtay oo mid halkaa fadhiyayna uu u soo qaatay say tahay gabdhaha caydooda ay laa fudud waxaan leeyahay dhaqankeena ha naga bi'inina oo ha naga dilina oo waan ku faanaay oo waan ku faraxsanahay dhulka ha naga dhigano ciid ha nooga darina shacabka Soomaaliyeed dalka Kenya joogo gaar ahaan North Eastern joogo dad Soomaalida aad u jecel weeyeen mid iyo dhif iyo aadan uunsi oo kala mooyee dadka Soomaaliyeed dad jecel waay aaday u jecel yihiin marka waxaan idin leeyahay guuleysta goor iyo ayaanba Soomaali weyn ha israacdo Jubbaland ha xorowdo cadowga ha ka xorowdo maxaan ku yiraahdaa meel kasta oo Soomaaliyeed ha xorowdo dalkeenana doorasho nabad ah Allah noo gaarsiiyo biidnillaahi raxmaan waaniga warsan sheekh maxamed waxa idin kaga tagayaa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh